Assalaamu calaykum. Ku soo dhawaada casharada taxanaha ee Class Academic and Technology. Waan ku soo qaadanay software kala duwan sida film editor-ka iyo design-ka iyo casharo kala doora. kulan wanaagsan mar kale ku soo dhawaada casharada taxanaha ee aan kaga hadlaynay Adobe Premiere Pro. qaybihii hore waxaan ku soo aragnay sida muuqaallo kala duwan la isku dhex gasho, sida qoraal loogu sameeyo, iyo weliba casharkii hadda ugu dambeeyay ee shanaad oo aan ku sameynay qoraal kor u soconaya iyo weliba mid kale oo dhinac u soconaya. sida hadda shaashada uga jeedid qoraalka cad ee halka ka muuqda hore ayaan ugu soo aragnay casharkii hore, isla markaasna kor ayuu u baxayay. kanina waxa weeyaan cashar oo qoraal kale oo xagga ka soo bilaabanaya isla markaasna xagga u dhamaanaya. haddaba sida muuqaalka hore dabayaaqadiisa aan kugu ballan qaaday in aan idin tusi doono isagoo toos u muuqda, hadda ila eeg. hadda waxaad soo aragtay sidaan u sameynay casharkii shanaad oo qoraalladii kala duwanaa oo hore aan kugu sheegnay. casharka lixaad waxaan ku eegi doonaa sida loo sameeyo logo ama calaamad kale ee soconaysa oo wareegaysa. haddaba mararka qaarkood muuqaalkii hore aan u aragtay halkaan u ahaa. meeshaan aan iska nimaano oo xogaa qoraallada badan culays bay ugu keeni doonaan. green screen-kan ayaan isticmaalaynaa oo aan soo samaysanay. green screen-kan waxa weeyaan waa green aan soo samaysanay. haddii aan qaabkan usoo samaysanay aan ku tuso, waxa weeyaan waxaan niri title markaan niri waxaan niri new title, waxaan soo qaadanay default aan soo qaadanay, kadibna waxaan niri green screen gs baan u samaysanay. gs markaan niri sidaa ayuu meel bannaan noo keenay. markuu meesha bannaan noo keenay waxaan soo qaadanaynaa rectangle-ka ayaan soo qaadanaynaa, kadibna waa ku qabanaynaa, saasna ugu soo jiidaynaa. meeshan rectangle-kan ku qabanaynaa. rectangle-ka markuu intaa noogu qabtay meesha ayaan riixaynaa ay ku qoran tahay kalarka caddaanka ah. waxaan qaadanay kalaradan ayaan kala dooranaynaa. mid alla midkaan rabna waa ka dhigan karnaa, laakiin waxaan u baahanahay green screen. greenkaas ayaan u baahanay oo quruxda ah. kadibna waa iska xirnay. kadibna waa kan halkaan noo yaala, noo soo qaad, halkan noo dhig. waa title caadi ah laakiin aan waxba ku qornayn. waan soo dhaweysanay. waxay ila tahay inaad u jeedid green screen shaashada in noo tahay. marka waxaan doonaynaa inaan calaamad ama sawir ama shay soconaya halka inaan ka sameynaan doonaynaa. weliba waxa ugu fiican waxyaalaha loogada iyo waxa la midka ah inaan sameyno. picture-kan sawirka ayaa soo qaadanay oo ah calaamadda Adobe-kii calaamadiisii. saan u yareyno, haddaba waa yareynaynaa. shaashadaan doonayna inaan fit ka dhigno, right click baan leenahay, kadibna waxaan leenahay set frame size. marka waxaan shaashadii wuu la ekaaday inkastoo xoogaa ay ka weyn tahay, balse sida u daa. haddii control z baan niri waa ka noqonay. haddaan doonayna inaan wax yar ka dhigno, waxaan sameynaynaa guji hal mar. halka markaan gujino scale-ka 100% waa yareynaynaa. waxaan ka dhigaynaa calaamad yar baan ka dhignay. haddaba calaamad yar markaan ka dhignay, waxaan leenahay calaamad yar baan ka dhignay. shaashada dhan in noo kala gaadho ayaan rabnaa. saa markaan niri xoogaa waa kala bixinay. markaan kala bixinay dhexda ayaan ka kala jaraynaa. waxaan rabnaa inaan calaamad kugu tuso halkaa wax rogmanaya soconaya inaan ka dhigno, sidaan u sameyn lahayn. ama muuqaal ama video ama sawir intaba waa noqon karaa waxa wareegsan, laakiin codku ma noqon karo. cod wax muuqdo ma aha soo ma.
okay haddaan doonayo marka inaan sameeyo sida ayuu waa hal mar aan dooranaya markaan doortay waxaan soo aadaya halkan waxa ka maamulay meeshaan dhigi lahaa ayaan geynaya halkaas ka maamulaya qoraalka muuska dhinacaas adoo cadaadinaya waxa u kaxaynaysa dhankaaga midig ba u kaxaynaysa dhinaca midig buu aaday marka kaas horjeedka dhinaca kale u kaxaysan sidoo kale u noqonayo marka halkaas kale aan geynay laakiin kanina waa muuska sidoo kale markaad dhinaca midig u kaxaysid wuxuu noqonayaa hoos dhinaca bidix u kaxaysan waxay noqonaysaa kor muuska ayaa caadi u soo wadaysa halkaas keenay wax soconayo oo looga wareegsanaysan ka dhigayna sideedii rotate sameynaysa okay marka halka joogno hadaba dhinac baan tagaynaa gees baan tagaynaa gees baan uga baxaynaa gees marka uga baxno waxaan leenahay rotationkaas ayaan calaamadda ku dhufanay dhag waa dooranay fiktan saarnay waa ka tagnay meesha uu ku dhamaado hamsana tagnay meesha ku dhamaado markaan tagnay maxaan sameynay waxaan siniri meesha ku dhamaado meel ka sokaysa ayaan tagnay meel dhexaan tagaynaa qorshe kale ka rabnaa in degtaan rabnaa marka dambe waxa leenahay calaamadan saarnay oo dhibicdaas yar baan riixaynaa oo marka labada dhibcood inta u dhaxaysa marka joogno waxaan leenahay rotatingkii waatan meeshaan tirada ah ayaan qabanaynaa waa badinaynaa xaggaana u soconaynaa shaashadana way nooga muuqanaysaa ayuu wareegaysa marka saas niri ayaan xagga soo aadnay aan shidna marka waxa u jeedaa iyadoo soconaysa looga soconaysa camal iyadoo ah oo wareegsanaysa u jeedaa okay haddaan ka dheeraysiyo inta haddaan ka dheeraysiyo waa arki kadhaa okay halkaa markay joogtoba wixii ka dambeeya maxaan samayn karaa waxaan leeyahay halkaa markay joogto kaasaan dhibic saaray iskaalkii okay iskaalka ayaan dhibic saaray iskaalka markaan dhibic saaray waxaan leeyahay meesha ugu dambaysa ii gee marka meesha ugu dambaysa markaan geeyey waxaan leeyahay masana dhibic kale ii saar iskaalkii laba dhibcood baan sameynay marka yaa waxaan niri يعني أنا بأدي هكذا هسوي أدي ربطه واي أوكي أنا وقانا مرك أنا براوين مرك أوكي يا وريكسنة ده أوتشي ده يا وريكسنة يا أوتشي ده دي بعد ممكن سوق قاعدين يثبت شهر منه waaye shaashada kusoo kala baxday okay saasaan u sameynay labada aan isticmaalay waxa weeye scale oo ah soo weyne iyo rotate oo aan ka dhignay 20 40 ama 204 degree marka sidaas ayaa loo sameeyaa muuqaal wareegsanaya ama sawir wareegsanaya ama muuqaal wareegsanaya qaybtan dambe iskaalka keenaysa waxaan ku caawinaya dhibcaha oo ah meesha aad ku cabiraysid hadaba mar quraan ku noqdo waa tirtiray waxaan soo qaatay picture-kan soo qaatay markaan soo qaatay waa kala baxshay markaan kala baxshay waa doortay kadibna waxaan zoom motion-kan ku dhufday markaan motion ku dhufday ayaa kan yareeyay markaan kan yareeyo dhibic yar ka dhigay ayaa waxaan niri ayaan meesha uu ka bilowdo baan tagay waxaan iri rotationka dhibicda saar soco bartankeeda meesha ah masana waxa samaysaa dhibic kala saar labada dhibcood inta u dhaxle ayaa imaamulaysa marka dhibicdan dambe aan sameeyay ayaa waxa leeyahay halka rotate-ka bilow wad ilaa inta rabti ka dhig kadib maxaa leenahay aan baraaweyn marka waxay u jeedaa iyo raacaysa ordaysa socota okay markii halka ay marsi istaagtay macnaha waxa dhamaaday labada dhibic inta u dhexlaa ahayd oo yahay marka halka ma joogno dhibicda kaleeto waa iskaalka tagaynaa
iskaalka ayaan wax ku dhufanaynaa dhibic kow ah. Waan ku dhufanay meesha ugu dambeysana waan tegaynaa, dhibic kale ayaan saaraynaa. dhibicda dambe noo joogna waxaan leenahay soo weynee shaashada dhan ha qabsato. waayahay marka aan baraaweyna mar kale say noqonayso haddaba ila arag. iyadoo wareegaysa ayaa ujeedaa oo waxay samaynaysaa rotate sida loogo gaari lugtiis camal oo kale. okay waxaa dhacay marka way soo socotaa shaashadii way qabsataba. sidaa ayaan u sameynay iskaalka iyo waxaan isticmaalnay iyo rotate. qaab kale oo loo sameyn karo rotate ayaa jira. waxaan leenahay maqal codka video tirtir waa sawirka misana waa soo ceshanay si oo wixii dhamaan sameynay meesha uga baxaan. halka markuu joogo waxaan rabnaa qaab kale oo ka duwan inaan sameyno. emotionka waa dooranaynaa, emotionka ayaa furaynaa. markaan furnay rotate ayaa sii furaynaa. markaan sii furno waxaa noo yimid calaamad yar halkaan noo yimid. kani waa iska yareynaynaa horta, tiradaan ka yareynaynaa. markaan iska yareynay halka markay joogto waxaan leenahay halkaasaan tagnay meesha ugu dambeyso kale waxaan saaranay rotate ayaan dhibic saaranay. masana meesha ay ka bilaabataan nimid dhibic kale aan saarnay. rotate marka hadda waa manual gacanta ku sameynaysaa, tiradii oo kale maaha, laakiin waxaad sameynaysaa tanaa qabanaysaa waa wareejinaysaa, taasaa qabanaysaa waa wareejinaysaa. markaad wareejisid ayaad waxaad leedahay ambaraaweyna. marka waxaa ujeedaa sida awal u sameyno kaleeto ayay u samaysanta, laakiin waa tan hadda iyada lafteeda halkaas ka wareegaysaa soo ma jeedid. inta tan wareegayso ayay taasina wareegaysaa. marka sidaas ayaa loo sameeyaa. marka intaad samaysid ayaa tan calaamadeeda iska xiraysaa oo iska qarinaysaa. marka qarisa maxaa dhacday halkeeda way joogto. casharkeeni 6aad ee aan kaga hadlaynay Adobe Premiere Pro iyo waliba sida loogo ama sawir wareegsanaya shaashada lagu dhex sameeyo ayaa casharka ku qaadanaynay. waxaan qaadanay shaashadii in iyo wareegsanaysa rotate loo sameeyo iyo in meel laba qaab loo sameeyo iyo waliba in iskaal sameynay oo shaashada ku soo dhaweynay. saddexaas qodob ayaan casharkeena 6aad ku soo qaadanay. waliba haddii aad wax ka garan weydid waad ila soo xiriiri kartaa oo qaybta commentiga ama emailka ama WhatsAppka halka ku qoran ayaad igala soo xiriiri kartaa. haddii aad ka heshay channelkan subscribe dheh, asxaabta kale u share garee. waa muuqaalada taxanaha Ikhlas Academic Technology iyo macna Abdinaasir Axmed Jaamac.